gobolka waqooyi bari alxamdulilah roobab badan kama dhicin sanadkadii aan soo dhaafnay abaar daba dheer ayaa jirtay roobihii gugana si fiican looma helin ilaahay aan baryayna inuu ummadda soo qawajiyo insha allah dowlad goboleedka wajeer gaaris mandheran waxaan filaynaa maadaama ay soo doorteen dad cusub iyo baarlamaan cusub oo gobolka ah inay ayakana ay ku dhaqaaqaan sidii ay shacabka ugu shaqayn lahaayeen waayahay inkastoo doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday ay jireen buuq fara badan oo hareeyay oo maxkamaddu dhowr jeer ay warar kala duwan ka soo saartay haddana kursigaaga adiga lagugu soo doortay ee gaaris oo kale weli buuq ayaa ka taagnaa maxkamad baa jirtay in musharaxii kula tartamayay uu kaa geeyey dacwaddii maxkamaddii xaggay ku dambeysay maxkamaddii u taala taas dadka kursiga laga soo doortay waxay doorteen 3 jeer 2007 2013 2017 cod labadii goor oo aan helin oo la yaab la isiiyeen taqriiban 22,800 qofkii ugu xogay waxaan kaga horeeyay 8,000 iyo dhowr haddana maxkamadda ayuu aaday maxkamadda way amarkeeda waxay bixin bisha koowaad ama bisha labaad ayaan sugaynaa marka taa waa mid maxkamad u taalo Soomaaliya iyo Kenya horey waxaa jirtay inay isku haysteen dacwad dhinaca badda ku aadan todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soconayay muran iyo dibadbaxyo ay dhigayeen dadka ku nool degmada Balad Xaawo isku dhacaya halkaas ciidamada ilaalada xuduudda iyo Balad Xaawo ku dhexmaray Soomaaliya waxay u dirtay wafdi xaqiiqo raadina arrinta dhibaatada xuduudda dhinaca Balad Xaawo maxaad ka ogtahay wasiirka gudaha Soomaaliya uu hadlay uu tagay Balad Xaawo uu soo arkay wixii la sheegay ku diray kuturkutaantu soo sheegay VOA baan ka dhigeysanay marka dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya sidii dawladaha kale aan xuduudka aan wadaagno xuduudiyaha waa shay cad oo international ah oo sawirkiisa uu banaanka yaalo dawladda Kenya uma joodo inay wadan qaato kaanagana diiqanaka wadanka Kenya waa wadan weyn bad buu leeyahay buuruu leeyahay meelo waxaa jirta roobka habeen maanu ka da'o oo caleenta iyo shaah dhul wuxuu leeyahay si noodisan oo kale gobolka waqooyi bari oo lagu talagalay in xoolaha geer iyo looda lagu xanaaneeyo marka hadda wadan ma aragtay laamadeed ku jiro oo yar oo bad dhaxda ku dhex jiro oo meel u dhaqaaqla maayo dhulka aan haysano waa taqriiban 1 million square kilometers dawladda Soomaaliya anagana xiriir leenahay xiriir fiican ma naga dhaxeeya waxaana leenahay habeenkaas ka shaqeynaa sidii nabadgelyo iyo xasilooni oo uga dhicinayd darbigaasna waxaa nagu qasbay nimanka yada al-shabaab marka dawladda Soomaaliya waxaan rabnaa inay nagala shaqeyso sidii annagoo iswadano aan nimankaas u ciribtiri lahayn haddii nimankaan la ciribtiro xuduud lama baahnahay waxaan rabnaa labada wadan in sida hadda Tanzania Kenya Uganda aan qarano in wadamada la isku furo oo geela jooga gaaris uu sanadka waqtiga gugana uu joogo Kismaayo iyo dhulka iyo balad weyn uu ka soo daaqo waqti kana geela balad weyn iyo Kismaayana ay imaadaan ilaa ijaara yaa rabnaa marka darbiga wuxuu noo qasbo Soomaalida waxay tiraahdaa oonka maxaa keenay oonka waxaa keenay qorax samo darbiga waxaa keenay shabaab